وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعن سلامينا اللي بعنا لبضة قلة برلمان كفدرالك الصومالية تردو تهاي سجاشن إيو شنطة مدنة ما أنت كلن كان سكوبي مد وحاربنا هالكان إن أمد الصومالية كله وذابنو اللي بعنا تردو إيتا سجاشن إيو شنطة مدنة كترسان لبضة أقل برلمان كفدرالك الصومالية كلن كودان ما أنت عكوس أبسنا إن إسكور إستان مرحلة دان كالجوركا دالكو أو قلي iyo firaaqa dastuuriga madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday 7 February marxaladaas kala guurka golayaasha baarlamaanka inay iskaga yimaadaan tala ka yeeshaan dalka iyo dadkana laga badbaadiyo firaaqan dastuuriga runtii arrin ugub ah oo dalka aan hore uga soo dhicin waxaan go'aansanay annagoo mudanayaashaas baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal inaan maanta halkaan uga dhawaaqno kutlo baarlamaaniya oo loo bixiyay magaca kutlada badbaadada qaranka si looga badbaadiyo dalka iyo dadkaba marxaladan kala guurka oo gala waxaan dooranay oo kutladu iska dhex dooratay xubno guddiya oo 11 xubnooda oo sida aad arkayseen hadda hareerahayga taagan sidoo kale waxaan cadeynaynaa halkaan ka cadeynaynaa in mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigiisa uu dhamaaday oo ku ekaa 7 February sidoo kale waxaan halkaan ka cadeynaynaa wax muddo kordhin la yiraahdo oo loo sameey karo ama loo sameeynayo madaxweynaha inaysan jirin sidoo kale waxaan halkaan ka cadeynaynaa xukuumaddu inay tahay xukuumad xilgaarsiina sida ku qoran qodobka 103 ee dastuurka federaalka Soomaaliya shaqada ay qabanaysan ay tahay shaqooyinka caadiga ee wax qaraarada siyaasadeed oo masiirka dalka iyo dadka quseeya aysan xaq u lahayn sida dastuurku tilmaamayaba waxaan sidoo kale halkaan runtii ka cambaaraynaynaa falkii maalin dhaweed oo shalay ahayd golaha shacabka ciidamo dharcada oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda gudaha loo soo geliyay xarunta baarlamaanka iyo hoolka shirarka baarlamaanka oo runtii tilaabo sharci darro ah xadgudubna ku ah dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka waxaan ugu baaqaynaa guddoonka golaha shacabka una cadeynaynaa inaanan aqbalaynin in gudaha lala soo galo ciidamo aan ahayn kuwa rasmiga ee booliska ee baarlamaanka federaalka ama golaha shacabka uu leeyahay haddii arrintaas soo laabatana runtii waxaan cadeynaynaa inay baarlamaanka naftoodu halis ku jirto laguna qasbanaa doono qof kasta oo mudanayaasha baarlamaanka kamida inuu difaacu nafsi galo oo qolo waliba ay ku soo talagasho mudanayaasha baarlamaanka inay naftooda ka ilaaliyaan ciidamadan sida sharci darrada lagu soo daabulay xarunta golaha shacabka iyo hoolka shirarka ee golaha intaba waxaan sidoo kale runtii cabaaraynaynaa isku dayga maalmihii la soo dhafay la isku dayay in warbaahinta madaxa bannaan la caburiyo loo diido inay gudaha u soo galaan xarunta baarlamaanka tabiyaan waxa halkaas ka socda sidoo kalena ciidamo dharcada inta la keenay xarunta baarlamaanka gudaheeda dhalinyaradii ka socotay warbaahinta mid ay ula hadlayaan sawirra ka qaadayaan handadayaan ay leeyihiin waan idin dilaynaa wax la aqbali kara maahan waana arrin ka soo horjeeda shuruucda dalka u yaala iyo xorriyadda oo runtii arrin ugub ku ah iyada ruuxeeda dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidaas daraadeed maadaaba xukuumaddu ay ku fashilantay hirgelinta doorashadii lagu heshiiyay 17 Sebtembar madaxweynuhuna uu ku soo fashilmay in shirkii Dhuusamareeb 4 looga tashanayay aayaha Soomaaliyeed iyo xalinta madmadowgii ama khilaafaadkii ka dhashay heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar ay ku heshiiyeen madaxda qaranka iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka golayaasha baarlamaankuna sida wada jira u ansixiyeen in wixii xilligan ka dambeeya jihaynta dalka jihada uu aadayo iyo badbaadintiisaba ay tahay arrin u taala inay go'aan ka qaataan golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama ay yihiin jihada rasmiga ee metelaysa shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin intaas
intaas ayaan ku soo koobaynaa warmurtiyaadkii waxaan jeclaan lahaa saaxiibada kale inay kabaan insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم xildhibaanada sharafta leh iyo dhammaan meediyaha inta meesha suuq waa salaamaya inta uu sheegay xildhibaanka igu horeeyay ayay xildhibaanada maanta meesha isugu yimid go'aansadeen ayagoo ka turjumaya ama ku hadlaya afka baarlamaanka Soomaaliya ee labadiisa aqalbo saad ogtihiin isku dayay u dambeeyay ee xukuumadda ee federaalka iyo dawladda xubnaha dawladda federaalka isku daygoodii ahaa si loo fulin lahaa heshiiskii 17 September lagu heshiiyay inuu soo fashilmay ay la socotaan inkii u dambeeyay maalin lagu soo kala tagay ay la socotaan sidaas darteed haddii xukuumaddii uu madaxweynaha hogaamiyaha ugu horeeyay haddii ay ku fashilantay inay wadankii doorasho gaarsiiso dawladii xubnaha ayaga is afgaran waayeen fashilka asaga inaan baarlamaanka la soo dhaxgelinin oo baarlamaanka asaga markiisa aan la fashilin way baarlamaanka xubnaha baarlamaanka kamid ah waxay iska xilqaabeen isugu yimaadeen waxaan ugu baaqaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed inuu wadanka Soomaaliya badbaadiyo meesha uu wadanka siyaasadiisa iyo jihadiisa aadaysan oo asaga go'aan ka gaaro si loo helo dawladnimada Soomaaliyeed oo taam ah waxa hadda socda runtii waa fashil iyo dardaar wareeg iyo in la dhaho wadankii waa burburahayo iyo qof walba inuu u dhaqmo inuu wadanka xawr ka gelin iyo runtii xilkas la'aan weyn oo ka muuqato madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dhammaan dadka talada wadanka hay sidaas daraadeed baarlamaankani xubnaha baarlamaanka maanta meesha isugu yimid waxay ku baaqayaan in dalka Soomaaliyeed la badbaadiyo iyadoo uu go'aan ka gaaray jihadiisa meesha aad ee baarlamaanka Soomaaliyeed intaas ayaan meesha isugu nimid intaasna soo qaaday waxaan rajaynayaa walaalaha baarlamaanka aan maqaynaa nala qaadi doonaan halkaasaan aadayna insha Allah aad u baasan salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ha hilmaamin inaad saarato subscribe suyaal media like saar sila share gareema